xildhibaan ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya iyo gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa ay si wada jir ah uga hadleen oo ay u sheegeen in wax laga qaban doono oo talaabo xoogan laga qaadi doono dadka ka ganacsada ama iibiya muqaadaraadka ee ku iibiya gudaha suuqa Xamarweyne. wariyahayaga Cabdulcasiis Cali Guuleed ayaa warkan Muqdisho ka soo diray. maamulka dawladda hoose Muqdisho ayaa waxa ay tilmaameen inay wax ka qaban doonaan goobaha lagu iibiyo waxyaabaha maanka dooriye ee lagu iibiyo suuqa degmada Xamarweyne. waxa ayna sheegeen in haddii aan la joojin waxyaabahaas ay dhibaato u keeni karaan shacabka ku dhaqan degmada Xamarweyne. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale oo ka qayb galay munaasabad ka dhacday xarunta degmada Xamarweyne ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ay la dagaalami doonaan dadka ka ganacsada muqaadaraadka iyo moobilada la soo dhacay iyadoo Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale oo dhanka kale bulshada ku dhaqan degmada Xamarweyne ugu baaqay in iyaguna ay ku soo wargeliyaan ciidamada amniga oo ay soo sheegaan meelaha waxyaabaha maanka dooriye lagu iibiyo. maamulku waa hal ama laba ama waa saddex laakiin shacabku waa meeqa? shacabku waa malaayiin waaye. malaayiinkaas waxaa laga rabaa inay garbaa iska shato oo kan xumaantooda iska qabato oo kan waxaalaaba iska qabato oo kan caqligeeda iska qabato oo kan moobilka dhaca iska qabato markaasaa waxaa laga qaban karaa kan kaloo qorga lordaan waa la qaban karaa. geesa kale xildhibaan Ibraahim Saarax Dayfila oo kamid ah munaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka dalbaday maamulka degmada Xamarweyne inay wax ka qabtaan meelaha lagu iibiyo waxyaabaha maanka dooriya. waxa uu carabka ku dhuftay in degmada Xamarweyne uu sheegay in lagu iibiyo waxyaabaha maanka dooriya isagoona tilmaamay haddii aan la qaban dadka waxyaabahaasi iibiya ay dhibaato u keeni karaan shacabka. afridoodkii waxa uu gadi jiray dahab waxa uu gadi jiray kutubta diiniga ah oo dadka iimaanka iyo ruuxa looga dhiso. maanta mudan gudoomiye waxa uu galaa xashiish waxa uu galaa carab waxa uu galaa gudoomiye oo soo idin waxay kaaga baahan yihiin sida ula dagaalamay lahaydeen adiga iyo maamulkaaga sharafta badan oo aan dareemaya arrintaas mudug badan inay ku haystay wasiirka arrimaha gudaha maalin xafladii calaamisaarkaaga ay ahayd meelaha uu hoosta ka xariiqay in meelo munaasib noo ah oo dakhli badan iyo wax badan laga soo geli lahaa in maanta ay noqdeen meelo fasaadka lagu fidiyo. hadalkan ayaa waxa uu imaanayaa xilli saddexdii maalmood ee ugu dambeysay ciidamada dawladda ay howlgallo ballaaran ay ka wadeen qaar ka mid ah xaafadaha degmada Xamarweyne gaar ahaan goobaha lagu iibiyo waxyaabaha maanka dooriya idan howlgalkaasi lagu soo qabtay tiro dad ah. Cabdulcasiis Cali Guuleed, Kalsan TV, Muqdisho.